وادقاي سوحيو بدي دابكا هايسو بدو كنا ديغيتي وادقاي سوحيو بدي دابكا هايسو بدو كنا ديغيتي عبد الرحمن محمد فرولة oo maanta shijraad ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ku eedeeyay in iyadu ay ka dambayso ayna maalgeliso dilalka ka dhacaya Puntland waxaan aaminsanahay shaqooyinkaas inay yahay wadadka ka soo fulay ay yihiin inta Puntland cadawga u ah nabadgelyada deganaanshaheeda iyo horumarkeeda cadawga u ah baa ku luglay meel kasta ay joogaan ama ahaadeen kuwa shaydaan ku shaqaysanayo dilka bini'aadamka xalaalaystay masaajida isu taagaya ama meelooyinka u dhigaya wadooyinka ciidamada amniga iyo madaxda iyo dadweynaha iyo culimada diinka ama ahaadeen kuwa siyaasad uga jeeda inaan Puntland degan ayaan deganayn kuwaas waa loogiya waadadaan iyagu ku fashalmay inay Soomaaliya wax ka qabtaan oo Soomaaliya ku khasaartay inay nabad ku soo dabaalaan inay dib heshiisiin ay hore u mariyaan ama bilaabaan iyagana guriga lagu ilaaliyo iyo taanka gudihiis madashii la isaga yeero oo la isu kullu haludooyin halkay gaadhaha ko ay haybadeeda haynanta hambalye runta ugu hor joogsan halagmin dilweeye iyo ku qaadin hadba raba in Puntland hadba meel wax raadiga intay tagto iyo television ay tahay waxa ka sameeyay qof qarka taagan oo aan wuxuu gacantiisa ku jira ayaan jirin waalabna kuwa kale la soo diray oo lacag loo soo dhiibay oo leeyahay dadka sameeysta bal hadla iyo waxa waalabna kuwa kale oo saraaga kamid ah in loo yeeray oo la yiri kaale idinkuna imaada هذا قاتل ميل بواجهه جري لا واجه حرية اللقاتي واجهه جري واجه حرية اللي دون جميل راح سنة استعمار واجري جري مركا وفي سوق سكرات ما بكيس دبيا غير هاي شدوا وقيس أنا أحمل يجري مثل لكن سوق عيبين لي وأنا عيبين أنا وأنا عبارين أنا خلاص كاس قعنتها أو أي سوق اللي يعني لعقت الصومالي مقعد القصوى يبغى عيرتي قحوتي حضر نزل بحين أو حضر لقتين كمل جارك ugu baaqay inay hirgeliyaan doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo aysan dib uga dhicin xilligii loogu talagalay waxaan ugu dhawaaqaynaa waana yireynaa baaqa baarlamaanka TFG dawladda federaalka markaa baarlamaankeeda go'aankii inay hirgeliso Nairobi 12 ahaa doorashadii inay qabtaan iyaga gacantooda ku jira iyaga saldhigii magaca Soomaaliyeed ah inay madaxdii Soomaaliyeed la doorto ra'iisul baarlamaankii iyo madaxweynihii inta ka horeysa Agosto waliba inaan la sugin Agosto gudaheeda ka hor bisha July baan rajeynaa in la doorto hadii aan ka hormarin si ma loogu helo dalka Soomaaliyeed hoggaan